sugannahay waa duleedka deegaanka Badar Wanaag oo ka tirsan gobolka Murudijeex isla markaasina ilaa 50 kiiloomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada caasimadda Hargeysa waxaanu doonaynaa inaan u horgalo arrin ku saabsan dhinaca dhaqista xoolaha gaar ahaan geela waa laga yaabaa dad badan oo idinkeedii kamid inaad taqaanaan in horweynta geela sanado badan lagu raaco dhulka hawdka ah ama dhulka uu ku dhaqmi karo balse sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo kordhayay dhaqan cusub oo ah nidaamka xoolaha loo dhaqo oo ah inaan xoolaha lagu raacin dhul aad u baaxad weyn isla markaasina xoolaha la fariisiyo oo qaab noocaasi loo dhaqo waxaan u kurgalaynaa mid kamid ah geelasha nidaamkaasi lagu dhaqo oo ku sugan deegaanka Badar Wanaag gaar ahaan deegaanka loo yaqaan Qoryaale waa aroor hore waxaanu ku jarmaadnay deegaanka Qoryaale intii halkaasi aanu ku sii jeednay ayaanu ku waabariisanay jawi degan oo fooda isgaliyeen ceeryaanta caleenta geedka iyo falaaraha cadceeda oo markaasi arlada u soo baxay Cabdinaasir Xuseen Cali oo kamid ah geel dhaqatada Soomaalida oo fadhigiisuna yahay magaalada Qardho ee Puntland oo booqashadaasi nagu wehelinayay ayaa ereya sugaareed waxa uu ku cabiray jawiga markaasi aanu ku waabariisanay subax arag aroortii seer ma weyda curato caad kala sokeeyo saylaan casow roob iyo sagal afweyne ah qoraxduna sinta bari kala socoto waa guye saatirkiina unto ayaan ka sugaynaa oo samadu nuurto cirku si khilmadow yahay daruur kala sarreysiyo guulaama socota guulaamadii wata socota daruurta iminka socoto aad arkaysid waa guulaama socota safarka ayaanu sii wadanay waxaanu subaxnimadii horeba la kulanay geela ganacsada Cabdilaahi Carab oo subaxa horeba geel shiruhu ay maalayaan dabcan waxaan ku soo beeganay iyadoo markaas la lisayo oo geel shirihu ku dhex jiro intan oo dhan aad aragtaan ee halka ku jirtaan waxa weeyaan waa nirgihii geela oo dabcan aad u tiro badan halkaana waxa idinka muuqda baarqabkii iyo geeli aan wali dhalin ee rimana oo isaguna tiro badana guud ahaan markii la sugeeyo waa ilaa 100 neef Cabdilaahi waa kii imaka dhalayay deyrtu imakaynu sugeynaa insha Allah Ilaahay wax khayr laynu ka keeno kanina waa kii guga dhalay geelan iyo sidii aad u fariisisay u dhaqday iyo tiradiisa bal waxoogaa ma bilow systemkan ku bilaabay caruurtayda iyaan waxaan la jeclaaday inaan siiyo caano geel dabadeedna aabahay baan laba halaad ka soo kaxaystay markii labadii gureenna laba halaad oo kale aan iibsaday qaalinta halkaa taagan iyo waxaan iibsaday hooyadeed iyo mid kale dabadeedna anigu waxaan jeclaa weligay inaan caruurtayda caanaha aan garanayo inaan siiyo dabadeed markii dambe waxaan ogaaday inay dadku u baahan yihiin oo waxaan loo keenayaa meel ay ka yimaadeenba inaan ogeyn kolkaa markaan caruurtaydii la jeclaaday inaan u sameeyo dadweynihii kalena oo caano fresh aynu u samayno damacii ganacsina wuu ku jiraa iyo faa'iido doonkii geela sidaanu ku bilownay saasuu ahaa ilaa 2012 xerada aynu joogno caanaha Hargeysa laga geynay dabcan dadsan arkay 300 litir halkii marba laga lisayo habeenkina saasoo kale dadku waxay isweydiinayaan Cabdilaahi Soomaalidu de 100 kiiloomitir inay wareegaan oo qofka laga yaabo xitaa ninka geela la socda wuxuu cunaba inaanu haynin dadka fikirkan aan aaminsanayn in xoolaha la fadhiisin karo oo qaab dabiici ah loo dhaqi karo bal arinta dadka u sharax xoolaha nooli runtii laf dhabarta dhaqaalaha ay wahaayeen dadkii inoo dhaqi jirayna way iskaga yimaadeen diyaar uma aha maata inay dhaqaan anigu waxaan isleeyahay dadkii reer magaalka ahaa iyo xoolihii noolaa way isku soo baxsadeen waynu ku qasbanay kolkaa inaynu xoolihii dhaqno haddii kale way naga dabar go'ayaan dabadeedna ma jirayaan
geelani runtii halkan buu iska joogaa beertiisuu yaqaanaa meel lama tago anigu waxaan isleeyahay systemkan baa ka fudud systemkii hore kolka maanta waxaynu u joognaa oo home cable runtii aad iyo aad baa u mahadsantihiin inaan noogu timaadeen aanu halkii aanu geela ku dhaqnay amba dhulkii aanu u beeray amba dhulkii lagu xanaanaynayay amba dhulkii caana lagaga qaadayay aad iyo aad baa u mahadsantihiin kolley maanta dalxiis badan baynu wada qaadanaynaa bilaabay 2011 toddoba sano ka hor baabad hashii ugu horreysay geela iibsada aad bilowdayba bilaabay intaanan bilaabin waxaan u diyaariyey dhulkii aan ku dhaqaayay aan u beerayay balliyadii hangaradii waxaasoo dhan baan u diyaariyey kolkaa runtii geela waxaan odhan karaa waa shaqo dalkeennu u baahan yahay markaynu dhinac kale ka eegnana waa shaqo aad u adag neefka xoolisaaka wuxuu u baahan yahay waxaynu u baahanay oo dhan geeluna waxaa la yidhaahdaa in cabdinaasir la yidhaahba inala socdo runtii geel ay noogu aqoon badan oo ka gabiya oo ku dhaqay qardho karkaar gobolka runtii aynu nasiib u helay inuu maanta inala socdo isaga ammaantiisa iyo quruxdiisa aynu u dayn doonaa cabdinaasir hase haatee waxaa la yidhaha wuu xaraga badan geelu waqti waxaanu la kulannay ee abaara culusi dhaceen hase haatee saaka waxaynu joognaa guri barwaaqo waxaanu isniin markii haddaanu berigaa dee aanu xaraashi layn amba aanu ka yaaci layn waxaanu isniin wallahi reer magaalka waa fashilmeeno yaa laydin odhan doona kolkaa runtii systemka geela si aanu ku bilownay saasuu ahaa mashruucani waa mashruuc weyn oo waxaanu u beeraa calafka sida balka suudaani garaaska haddii ilahay bida alfa haddii sisintii waanu u beeraa waanu siinaa khashinkeedii wuu u yaalaa runtii waxyaalaha nuu qabanay waxyaalahaas dayma quruxdiisa oo adiga arkayo geel kastoo hawd laga keeno saaka inuu geela hargeysa jooga ka qurux badnaada soomaalida waxaa laga yaabay qaarkood inaanay ka dhaadhicin 100 neef baa dhul aan ka badnayn 5 kilomitir ama 10 kilomitir wixii cunayna looga beeray halkaana lagu hayaa oo dabcan da quruxdaas aad arkaysana leh dadka fakarkan aan aaminsanayn in xoolaha la fadhiisin karo oo qaab dabiiciina loo dhaqi karo bal arrinta dadka u sharax runtii horta anigu xoolaha waxaan isleeyahay xoolaha nooli runtii lafdhabarta dhaqaalahay u ahaayeen dadkii inoo dhaqi jirayna way iskaga yimaadeen diyaaru ma aha maata inay dhaqaan anigu waxaan isleeyahay in dadkii reer magaalka ahaa iyo xoolihii noolaa way isku soo baxsadeen waynu ku qasbanay kolkaa inaynu miyi xoolihii dhaqno haddii kale way naga dabar go'ayaan dabadeedna ma jirayaan kolkaa sida loo dhaqaya anigu waxaan isleeyahay runtii hawlina way taallaa dheefina way taallaa keebaa hawl badan kanay soomaalidu sida caadiga u dhaqi jirtay iyo nidaamkan cusub aad haddaad bilowday xagga hawsha marka la eego geelaasi dee waa geel laga daba wareegaya buu ahaa geelani runtii halkan buu iska joogaa beertiisuu yaqaanaa meel lama tago anigu waxaan isleeyahay systemkan baa ka fudud systemkii hore sahaate dhib baa ka sokaysa in wax loo beeraa buu u baahan yahay waayo maalin maalmaha ka mida baa dhib iga soo martay anigoon garanayn dayr baa daaday roob baa daay hawd baa ka daay geelii oo ii xasiloon oo ii wanaagsan oonu halkan wada joogno uunbuu geeli sibraha isku wada martay nin baan u yeedho geelina xaggaasuu wada jeestay waxaan ku yidhi war geeli maxaa maata uu leeyahay wuxuu damcay buu yidhi inuu caawa guuro galo marka go'aan buu geeli gaaray go'aan buu gaaray arrin naxdin laba igu noqoto wuxuu kol haddii sibraha isku maro u taageli mayno haye dabadeedna habeenkii dambaaba konton
iska goosteen kolkaa runtii dee iminka wuu rabaysmay meeshuu bartay berigii hore muu aqoon waa iminka wuu fiican yahay aad iyo aad buu wanaagsan yahay sistamadaanu isticmaalna waxaa ka mid ah iminka geelan waa geelii iminka dhalayay kana waa kani caanaa ka lisanay kii guga dhow iyo kii gudnaa ee aan iminka dhoweyn oo kale hawd buu iska daaqayaa isaguna markuu soo dhowaado ayaa lasoo kaxaynayo halkan iska imanayaa kolkaa runtii waxaan isleeyahay waa shaqo wanaagsan oo dalkeenu u baahan yahay oo dadkeenu u baahan yahay annaka mid baa nagu waajiba dadka inaanu caano nadiif oonu ilaalinay u geynay baa nagu waajiba dadkuna inay wixii dalkooda ka soo baxay inay xiisteeyaan tayada caanaha ka waranay waxa loo beeray dhul kala duwan iyo tayada caanaha geelan caanahan horta waanu ilaalinaa weelkii waa idinkan arkaayo waxaan weelaanu dibadda ka keennay oo loogu talagalay caanaha in lagu shubo ayaanu u keennay oo loogu talagalay kolkaa waxa weeyaan sidaan nadaafadooda u ilaalina marka ugu horreysa inamadu markii geela candhada ay lisayaan gacmahay maydhayaan hashaa imanka markii la kiciyey waxaa la ilaalinayaa oo tuwaal baa lasoo qaadayaa oo la marinayaa dabeedna si aynay saaladaas iyo waxaas weelkii aanay ugu dhicin kadib inanka wuu lisayaa waxaa ka horreeya in dhiirkii la culo aynu arki doonno inamadoo culaya oo la nadiifiyey oo dee isaga dhiirka culayguna dee dadkan dambe si aan ugu sharaxno waa geedkii meegaaga la odhan jiray oo dabadeetana waa meegaagii amba dhirtii berigii hore lagu culi jiray oo lasoo qaado runtii hawl badan lagu tago waqooyiga wuu ku yarayay moogta hawdkuu ku badan yahay waa la culayaa dabadeedna isagoo la culay baa geelii lagu lisayaa marka geelaa lagu liso runtii waxa lagu shubayaa joogaga si aanay waqti badan ugu qaadan hargeysa saacad buu gaadhigu socdaa ayagoo xoorkii leh ayaa la geynayaa waxa u diyaara marka halkaa la geeya caanihii laga shubo laba hablood baa runtii maydhayo si wanaagsan u nadiifinaya dabadeedna ayagoo nadiifa baa la keenayaa casarka marka la keeno bahashii hogta la odhan jiray waa la hogeynayaa dabadeedna casarkaynu arki doonaa iyadoo joogagii laysla weydaaranayo oo la wada hogeynayo kolkaa waxaanu aada ugu dadaalaa dadka inaanu caano nadiifa u keenno oo runtii aada u wanaagsan marka cabdilaahow markii aanu nimi caanihii la lisayey saacad kadibba hargeysa lagu cabayaayo dadkii macaamiisha habay gaadheen miya dad badan baa sugaya way ku quraacanayaanba waxay ku sugayaan inay ku quraacdaan caanaha dad badan baa iska daaya quraacdii kale runtii way ku quraacanayaan annaguna waxaan u diyaar garaynaynaa inay ku quraacdaan weliba dee cabdillah ku darso marka magaalooyinka waaweyn la joogo dadku waxay jecel yihiin inta badan inay cabaan waxay garanayaan oo dee marka magaalo weyn tahay wax walba way iman karaan marka dadkuna dee xiise gaara miyay u qabaan dee geel halkanoo ay garanayaan iyo haddana meel mucayanahoo lagu iibinayo caanihiisii sidee bay dadku u xiiseeyaan runtii caanahaas iminka way sii wada qorayiin salaada subax baa la qorayaa buuggiyo qalinkaa laysa saarayaa dabadeedna sagaalkaba gaadhi maayaan dad macmiila dumarkii caruurtii dadkii xanuunsanaya waxa kaaga filan berigii abaaruu dhaceen iyaanu geela xagga galbeed geyni dabadeedna arrimihii igu yaabka badnaayee soo maray bay ahayd subaxdii markuu geelu guuray iyo laba dumar ii yimaadeen dabeedna waxay dhan waan ku dacweynaynaa maxaa dhacay baan ku yidhi maxaa ii dacweynaysaan ay sheeganaysa waxay ii sheegeen inay caanaha uga yimaadeen ingiriiska inay tigidh u soo goosteen inay doonayeen 2 bilood inay caanaha cabbaan aniguna ma ogeyn dee inay cidi tigidh u soo goosto qofigii iibsanaya un baan u arkay ismaad lahayn boqolaa ku xisaabtamayso taraaga soo gashay kusoo xisaabtamaysa waxay idhaahdeen waan ku ashkateynaynaa kol haddaad aad sheegi weyday ood odhan weyday wakhtigaa geelaa waan sii daynayaa oonad iclaanka gelin dee waan ku ashkateynin arrintii igu adkayd ee soo martaa ha
kolkaa waan maslaxo waxaan ku hooyahay iskateynine xal baan gaaray mudame maan ogeyn baan ku inay joogtaan kolkaa dadku way ku xisaabtamayaan dibadaha looga imanayaa dad waxaa jira haddii ilaahay badankeeda xanuun oo cabaya dad caloosha kaga shaqaynaya baa jira miyaad noo tilmaami kartaa hashii aad ka bilowday geela iyo magaceeda hashii aan ka bilaabay iyo qaalintay dhashay oo maanta riman ayaan idin tusi karaa luud baa la yidhaahdaa luud waa hal culus oo gaabisa oon aada u dheeraynayn qaalintay dhashayna alkun baan waxaan u bixiyey alkuno iyaduna imakay dhalaysa halkan bay joogtaa waynuu tegi doonaa marka waa halkii geela laga soo alkumay cabdinaasir baa ila jooga cabdinaasir wuxuu ka soo ciyaar guday meel la yidhahdo qardho geelanoo kaloo ku dhaqaa marka isagoo cabdilaahi waxoogaa uu ka khibrad badan yahay muddo badan buu geela dhaqayay cabdinaasir maanta waa inagana xeradii geelaynu joognaa soomaaliduna waxa ugu ayaan badan dee ninka subaxii geel dhalaya intuu caanihiisa cabo deetana halkaa ku waabariista saakaynu tii haynayo waa inaga ku waabariisanay bal geela iyo waxaad khibrad u leedahay qaabkan cusub ee loo dhaqo ilaan soomaalidu waa tii geela intay raacdo muddo dheer ku maqnaan jirtay maanta arrintii waa lasoo koobay boqolkii geela waxaweyaan masaafo kooban baa lagu manaafacaadsanaya bal arrintan adaa cabdilaahi hortii bilaabay bal ka waran bismillahi raxmaan raxiim cabdiow aada iyo aad baad umahadsan tahay dee aniga cabdulaahi carab iyo adiguba waxaad qirteen inaan xooga khibrad leedahay laakiin arrinku sidaa maahano ninkan cabdilaahi bahdayada geeljiruhu ninaanu la tartamayno ma ahan khayr allah siiyo wax badan buu sameeyey waana guddoomiyaha geeljiraha somalilan keliya maahan guddoomiyaha geeljiraha geeskaanu rabnaa inaanu ka dhigno walaal su-aashaada haddaan usoo noqdo iminka waxaynu joognaa xeradii nirgaha waa idinkaa ujeeda waa meeshii uu ka lahaa iyo kuman intay guga dhaleen gabantu yuusayso gabantii wataa yuuskuna waa cidaa quruxda badan oo waa cid nooca ka helitaankayga iyo balwadayda keliyahi waa geela balwado mid baan leeyahay waa geela geeluna dee soomaalidoo dhan baa ila jeceloo keligay maahanoo waa tii ay inantii lahayd nin godoo la gowracay baan gashigiisu kuu imanay geelu xoolo kuma jiro cambaro marka geelu xoolo kuma jiro haddaynu usoo noqonno geela iyo waxtarkiisa dee caalamku iminka wax badan oo research ah baa la sameeyey caalamkii reer galbeedkii baa iminka geela dhaqaya waxaa lagu dhaqay yurub waxaa lagu dhaqay maraykan waxaan ka warhayaa in talaabiib xataa lagu dhaqay daraasaad fara badan oo cilmi ah ayaa laga sameeyey dadka aqoonta leh iyo dadka civilizedka ay maalinka maanta ay daraasayn karaan farur yaciroy farur dhaladka fulaka cabsada hobay weheyoy gaalugeel fulay gaadhi maaye haka gara fulo hobay weheyoy ceelankuu galay cabsi maaye cilma ku qabtaa habay weheyoy tagi weydaye matig laa shubay taasi weydaye matig laa shubay tagi weydaye matig laa shubay soomaalida ayaa suugaan kala duwan waxa ay ku ammaaneen geela iyo dhaqashadiisa sida uu sheegay cabdinaasir xuseen cali soomaalidii hore oo aad iyo aad garaad iyo aqoon dheeraad ah u lahayd wax badan bay ka tiri ninka soomaaliga geela sidaynu ogsoonnahayna soomaalidu rikorka keliya oo ay leedahay waa suugaanta example nin la oran jiray cumar australi oo reer hargeysa ahaa wuxuu leeyahay dhowr caano laga soo lisoo yaro dhanaanaaday nin dhadhamiyey wuu garanayaa dhulay qaboojaan ragga lahaha sii dhowraya dhaqasha waa geel cumar australi ninkii abwaanka ahaa oad wada garanaysaan oo reer sool oo la oran jiray ismaaciil mire wuxuu leeyahay
wuxuu leeyahay ari iyo lo' baa lagu baxshaa aafa kuu timid arlaaga geelaa naftaa lagu ilaashaa kulay aabbaha tahay cid kale looma aamino nin reer gaalkacya ahaayoo haaraa saleemaan diiriye abaar la oran jiray wuxuu leeyahay bur la dubay isagu bur la dubay bariid subagle iyo beri la googooyey barwaaqada magaalada haddii badi la ii keeno bishimahayga goortaan gashaan balal ka qaadaa malahoodow gaas buu qabay bishimahayga goortaan gashaan balal ka qaadaa markaanse biraha ina liig dhammaan balax qabooba waa caanihii buu ujeedaa waxaan leeyahay soomaalidu geela qiimihiisa way yaqaaneen geelana sidiisaba nin liitaa dee cadna kama goosto caanana kama maalo marka waxaa la yidhi caynmarku waa cad geelu leeyahay oo xagalada halkaa shafka caynmarkeedii iyo caanaheedaba caalo loo diid marka kala sugantu ay leedahay isagaa wax daaqaba ugu nolol dambeeya waa adkaysin geelu biyaha wuxuu ka qadi karaa intuu doono haddii laba imtixaamoo lagaba qadiyaba biyaha wuxuu qadi karaa sanado dhan example ninkii aynu iminka ka hadlayno ninka la yidhahdo ismaaciil mire reerkii uu ka dhashay ayaa keys galay oo rag laayey dabeedna ingiriisku waxaa leeyahay reerkaa geelaha laga qabto meel iminka magaalaha aqalaale la yidhaahdo geeliisi wuxuu ga dhisay hoosooyin aqalla ah hameenkiina waa midhaa maalinkiina aqalkaasu ku jiraa diraac baalkii jiilaal dhan iyo xagaa dhan bun geelaasi aanu biyaba dhadhaminba dabadeedna markii roobkii daay baa gabari waxay leedahay adeer yarad ha layga bixiyo wiiluu dhalayuu qabay wuxuu leeyahay aqalaale maantuu dhaco unkuu wada yaabay umulaha ma tagay maalinkii loo afdhaqi waayey aagaan karuuraa sugnayd awrka kuu raran in markaa dantaba dhay ayay ka iltiraayeen ariga iyo lo' baa lagu baxshaa aafa kuu timid arlaaga geelaa naftaa lagu ilaasha geelu haddii biyaha lagaba gooyaba wuu noolaan karaa haddii daaqa laga gooyo 30 beri iyobuu biyo iyo baadla'aanba haddii meel lagu xiro noolaan karaa marka waxaa laga hadlayaa adkaysinka geela waxaan leeyahay ugu dambayntii fariinta aan u direeyo dadweynaha ayaa waxay tahay dadkii xoolaha inoo hayey dadkaas way lumeen waxaa lumiyey qaad iyo muqaadaraad qaad iyo sigaar iyo wax la mid ah dhaqashadii xoolaha la dhaqayana meeshay ka baxday waxaa loo baahan yahay dadka aqoonta leh dadka hantida leh dowladdu in la sameeyo siyaasad lagu dhaqayo xoolaha waxaa loo baahan yahay dadka cabdullaahi carab oo kale ah oo maalinka maanta awoodda iyo kartida u leh inay xoolaha dhaqaan waa inaad xoolaha dhaqdaan xoolihiina way baabi'een marka waxay u baahan yihiin xooluhu in dadka reer magaalka dadka hantida leh dadka aqoonta leh in xoolaha la dhaqo dowladduna iminka cabdullaahi carab shaqadan uu hayo waa shaqo aad iyo aad u ballaaran waxaa loo baahan yahay dowladduna inay itijaah siyaasiga samayso oo ku aadan xoolaha sidii loo dhaqi lahaa waxaa la yidhahdaa dhulka soomaalidu waa meesha geela ugu badan ku nool yahay caalamka oo dhan laakiin warbixinii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey soo baxaya waxa ay ka dayrinayeen in tiradii geela dhulka soomaalida joogta ay hoos u dhacday maadaamaad ka mid tahay bahda geeljiraha ee soomaalida arrintaa ma dareensan tahay aad iyo aad waxaan ku oran karaa tiradiisii iyo tayadiisiiba hoos bay u dhaceen waa tiradiisii abaaraa dhacay dhulkii xaaluf buu noqday biyihii iyo baadkiiba way yaraadeen dabadeedna geelii wuu baaba'ay waxaan aaminsanahay 50% wax ka yar baa maanta nool dabadeedna geela quality-giisina waa dhumay tiradiisina waa dhuntay sidee lagu soo celin karaa markaa waxaa lagu soo celin karaa arrimaha kan waxaa lagu soo celin karaa horta in la iskaashado in geela la beero waa la beeri karaa in loo soo jeensado la dhaqo inta siir carabi oo kale geel waxaa laga helaa 20 litir iyo maalinkii lagaga xisaabtamo nooc gaar ah geela majaahinka la yiraahdo baa kamid madmadow geela xorta la yiraahdo cadcad baa kamid geela xumru nacamka la yiraahdo gadguduudan baa kamid geelashaas oo dhan waxaa la sameyn karaa artificial insemination awrtiina waa la keeni karaa marka noocana waxaa loo baahan yahay arrintaa in dowlad iyo ganacsatada la iska kaashado noocana wax laga bedelo geelana la dhaqadii si uu bato haddaan tamashlaha hadba guri tago yoo timaafiro yoo hablayo tago yoo tallaabada tiltilmaansado waa la tiirey tiiraahiyo tayda mooyiye taa wadaa dhigay daawadayaal geela waxaa la soo gaaray xilligii la sii dayn lahaa uu foofi lahaa meelihii uu tegayey sidoo kale waxaan aanba bixinaynaa caanihii geela laga lisay oo saacad kadib magaalada gaari doona
marka sida caanaha loo amba bixinaynu eegi doonaa ninka garofka imka caanaha ka cabaya haye dadkii oo diyaara oo caani u soo diyaar garoobay waxa muhiim ah inaad ilaalisid macmiilka oo waqtigii ku haboonaayeen ay gaaraan loo geeyo haddii dadku intay kula caani maxay qabanayaan dawad warwaraysa runtii gaarigaas laba gaari oo noocana ayaad samaysay yaa isku bedelaa kolka isaguna waa kan bal hadda wuxuu marka waa isku xidhaha macaamiisha iyo xerada geela cabdi aadanow marka hore waan kugu soo dhaweynaya telefishinka home cable oo maanta ku soo booqday xeradan geela ee barqamaal bal waxaad nooga warantaa gorof caanaabad haysaayo oo xoorkiina leh soomaaliduna waxa isla weyda gorof xoorle iyo geel dhibaatadiisa sida loo dhaqayay bal arrintaa ka waran waa arrin la yaab aad iyo aad u leh caanaha anigu markaan dhamo anigoo markiiba hargeysa ilaa saacad iyo wax yar saacad waxlaa marka qofka ugu horreeya dee caanaha dhamaa waa markiiba dee hasha ugu horreysaa laylisaaba markaan caanaha cabo anuu basbaasaan markiiba gelaya hargeysa ma gaajoonaysid habeenkii waan qaadaa subaxii waan qaadaa markaa wallahi aad iyo aad bay caanu u fiican magaaladii buu gaarayaa waxa weeyaan waa caanihii hargeysa oo dhan sugaysay waa tahay daawadayaal geelu marka la lisayo iyo marka la raacayo iyo marka la waraabinayo mar kasta agab u gaara buu leeyahay haatan cabdinaasir wuxuu gacanta ku hayaa weelkii geela lagu lisayey dabcan kolley anigu waan garanayaa laakiin waxaan filayaa dad badan oo halkaa inaga daawanaya inaanay magaciisa saxayn bal wuxuu ka samaysan yahay iyo caanaha lagu shubo marxaladaha ay maraan cabdinaasir bal loo sharax bismillahi raxmaan raxiim aaladan iminka aynu gacanta ku hayno daawadayaal waa waxa sharafta ka qaaday dawal fara badan oo carabtu ay ka mid tahay oo xoolo dhaqata caanahoodii dhadhankoodii iyo damcadoodiiba waa waxa inagana xoolaheenna sharafta u yeelay waa cugayga iyo haruubka soomaalidu waxaa laga sameeyaa dhowr geed dhirtaa waxaa ka mida qabay oo kale geed qaba la yidhaahdo ka mida geed mura la yidhaahdo waxaa ka mida geed la yidhaahdo dhufeeco iyo dhir noocaas oo kale waxaa ka mida cawda oo kale haruubka waxaa la yidhahdaa haruubgaal magacyadiisa waxaa ka mida haruubgaal waxaa ka mida gorof waxaa ka mida qabay waxaa ka mida mure waxaa ka mida bire waxaa ka mida haddii ilaahayba ku leeyahay magacyo fara badan ayuu leeyahay soomaalidu waxaa ka mida aameel markaa waa tii aan ku lahaa markaan biraha ina liig dhamo ayaan balax qaboobaa waa birihii kanuu noqonaya wuxuu noqonayaa gabna looma yaryeera iyo gaanyo dhagaweyne murihii gaduudnaa miyaa gooni laga buuxshay markaa waxaa ku soo haray caanaha su-aashaada waxaa ku jirtay maraaxilka caanuhu maraan nin abwaana wuxuu leeyahay maydhanaanka iyo xoorka iyo dhuunka iyo faarka raggooda dhedhami caanihii dhimiya haameel dhaqaalaysta xoolaha kuwii dhaafsanaan jiray caanuhu mar waa dhay mar waa maydhanaan mar waa suuso mar waa karuur mar waa jinow magacyo fara badan iyo maraaxil fara badan ayay leeyihiin geelan iminka cabdulaahi carab waa geel daaqa dhir dabiici ah geela marka noocaasa caanihiisu waxay marayaan maraaxilkii caanuhu mari jireen oo dhan ayay marayaan halkaa haddii laga yaabo in waxaan dabiici ahayn xoolihii la siiyo caanuhu aanay maraaxilkaa marayn oo aanay mardhay noqonayn dhayda hadday dhaafaan aanay taya badan yeelanayn waxaa geelan caanihiisa loogu jiraa kayuuga oo laysugu laynayaa wax kale maahna dee waa dabiiciga marka halkaa waxaa nooga muuqada dee buuro fara badan oo soo wareegsan waxaan joognaa waa bankii qoryaale dhammaan dhirtii geelu daaqi jiray maraagiba inoo muuqdaa dareemadiiba inoo muuqata qurci nooc walba marka waxa weeyaan dee dabiiciga laftiisiina qayb weyn bay ka tahay waxyaaba aad tilmaamayso oo waxyaaba in sheenu qabanayso berigii hore anigu magaca dee qoryaal aniga waa igu cusub yahay ban markii aan maqlo waxaan malaynaya dee dhul banaan oo sida bancadda iyo karamaan oo kale iyo dee ninkii garanaya iyo banaano iyo baan moodayay laakiin tani ban maahana waa hawd hashu maalinkii 100 geed oo kala nooc ah ayay cunaysaa cawskiyo intaasoo nooca oo dureemihii iyo dixigii iyo sifaarkii iyo ayaxmakarihii
iyo dhirtii oo bismillahi raxmaan raxiim ayaad arkaysaa geed cawseedkii oo waxba ka maqnayn marka geed qodxeedkii oo sogsogtii iyo galoolkii iyo maraagii iyo kulli dhaameelkii saaran yahay oo ilaahay yaab ku keenay marka halkani waa meel aan u malaynaya cabdullaahi carabi inuu sahan fara badan sameeyey oo aan aaminsanayn sahan badan lagu helay bal cabdullaahi carabi aan weydiino cabdullaahi sidee baad ku dooratay inaad meeshan degto oo aad xeryahanka oo dad geelaha kan dejiso maxaad ku dooratay halkan qoryaale shakuurow saaxiib aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta ilaahay unbaa ii dooray maskaxdayda inaan shaqadan qabto in badan bay ka guuxaysay inaan geel dhaqo inaynu u baahana inaynu xoolaheena fadhiisino waxaan odhan karaa maalin maalmaha ka mida nin dilaala unbaa i soo kaxeeyey beerahan beer ka mida buu keenay dabadeedna beertaasun baan iibsaday halkaasun baan ku dooray kolkaa ilaahay unbaa ii dooray meel wanaagsan oo dad wanaagsan oon odhan karo hawdkiina xaggan bay ka matashaa waqooyigiina laamid iminka halkan bay naga saarantay soomaalidu waxay yidhaahdaan 100 halaad iyo baarqabkoodii halkaana baarqabkii baa ka muuqday kol dhaweyt hore inuu fadhiistaan filaya baarqabka miyaad u soo xushay mise geela dhalay maya inaadeer geelan hashii ugu horreeyeen iibsado waata cabdishakuuro waata halkan taagan daawadayaal hashii markii hore aan magacaabaynay waatan luud baa la marka waa duqdii geela waxaan maqli jiray geela duq baa loo tumaa marka waa hashan saylada keenay saydigay oonu saaxiibna nahay kolkaa markii hore xididka ka timi kolkaa waxaan odhan karaa geelaygu xagga xididkana uu ka soo jeedaa kolkaa hashan luud baa la yidhaahdaa waa hashii ugu horreysay xeradan soo gasha ee geelan soo gasha 5 goor bay dhashay haddana way irmaantay imankana way irmaantay midgaheedu waa ku halka ku jira imanka awrkii oo kale waynu u geliyo waa ka halkaa ka muuqda ilaa 5 baarqa baan leeyo geela ku jira kolkaa kulba mid baan ku daraa waan tijaabinayaa mid wuxuu ku wanaagsan yahay caanaa mid intuu aad geelaa ku dirtid waa awr miidhan dhalaya dabeedna waad ka dabraysaa mid kale aad ku daraysaa qaalmii buu dhalayaa kolkaa awrta waan u kala bedbedelaa 5 awrna way u joogaan dabcan cabdullaahi da ganacsada tayo xaqii ganacsiga baa mashruucan kama madna geelo ganacsadu inta badan waxay maal galiyaan meelaha isleeyihiin waxba ka soo noqonaya bal maalgelinta geela ka waran sidee wax uga soo noqon karaan ama dadku soo ugu soo dhiiran karaan in lacag galiyaan oo geel badan inta iibsadaan ay manfac uga sugi karaan waa shaqo wanaagsan oo waxa dalkaaga ka heshidun baa ugu wanaagsan amba ha yaraato amba ha badnaato shaqada dalkaaga aad ka helaysa ayaa horta shaqo ugu wanaagsan faa'iidaduna waa waxaan u soconno waanaanu ka helnaa amba ha yaraato markaan anigu ganacsigayga kale badan ee ku jira eego iyo markaan xeradan imaadeen geedkaasna seexdo ee hashuna kaynta ay daaqayso ay inamadu intuu ii soo daayaan ay kulba ii soo lisaan oo markaan ugu farxadda badanahay shaqo kastoo kaloo waloon galaaba warwar badan bay leedahay anigu waxaan isleeyahay waa shaqo wanaagsan shaqo iyo geel ammaantiina cabdinaasir baa inoo sheegay ammaan waxay nagaga filan dee ilaahay baa ku faantamay oo yidhi wayla libili kayfa khuliqad ammaan ilaahay baa ammaanay ammaan labaad ilaahay baa ammaanayoo bini aadamka ugu qaalisan wuxuu ilaahay abuuray markay iyagu isdilaan isaga ku kala samra buu yidhi magti loo kala qaadanayo 100 halaad markaynu inaku dhaqankeenna eegno inanta quruxda badan leh marka la guursanayo amba inanta qiimaha badan leh amba inanku qiimaaba isku yeelaya isagu deeno isagu isladho geel baa la iska qiyaasaa hadduu ninku dee inanta geel yar ka bixin waa dee ammaan badan ilaa imaka inamadeena jaamacadaha ka soo bixin geela aqoonin marka inanta la siinayo yareedkii geelana waa soo wadnaa ayaa la yidhaha kolkaa qiimo intaas iyaa nagaga filay cadkiisaynu cunaynaa caanihiisaynu cabaynaa cabdinaasirow muxuu ahaa habeenkii gabayga marka geelu isagoo marti timaado loo xigayo gabaygii loo tiriyey bismillahi raxmaan raxiim wuxuu yidhi xidigoo dhacay xaaji nuur iyo xilmi ku yimid oo ma lagu xigay xigtu waa hal la lisay godolkii hore dabadeedna marti goor xun socod ah ayaa timid aan wax kalena dee loo hayn waatuu lahaa axmed cali cigaal marti goor xun socodkuwa adigoon gasiim hayn iyo gaaban oo ari geeluna irmaanayn
xidigoo dhacay xaaji nuur iyo xilma kuu yimid oo ma lagu xig malaha cabdullaahi taasuu doonaya geeli baynu imakana lesaynaa waxaan samaynaynaa hal aanu doonayna caanaheeda inaynu cabno ilaa caanihin kale waa ti la qaaday ayaanu doonayna inaan lisno markaa nala socda insha allah daawadayaal sidaad arkaysaanba hashii waxaa lagu bilaabay in la liso laba nin baa hareeraha kaga jira oo gorofkiina waxaa laga yaabaa lugtaa lagu hayaa nirguhu halkan baa laga soo daynaya daawadayaal iminka tanoo kale way xareysan tahay kolka la doonaya hasha in la bilaabo in la liso baa nirita lagu soo daynayaa markaa waxoogaa ayaa hashu ay niritu ay shaqaysaa markaa kadib ayaa laga yaabaa in la liso oo markay neefka yaru shaqo iyadoo labada qofee lisaya hareeraha ay ka gelayaan sidii markii hore aynu aragnay oo kale laakiin marka ugu horeysa waa in lagu sii daayo neefkii ay dhashay si ay u dareento oo ay u godlato oo caano badanna markaa ay uga soo baxaan adoo walaal magacaaga ii sheegaya geela marka la lisayo soo godol guhaadow adaa geedha xogsaday adaa geedha xogsaday soo godol guhaadow adaa geedha xogsaday aduu maxaad ku dari lahayd heesaha laftooda duubigii guga lagaa dawdabay dalba juuqiyo dalba kuuye waa haruubkii caani marka waxa weeye dee hashu markay duqowda caani laga dhameeyo wey marna waxogdusada dacarunkeeda taagan waxaad ka warantaa geelu markuu abaarsado iyo markuu garanaysa duruufo kale laga yaabay qofka geelaa wada inuu calaacalayo adaa agablada abaarta u dhow kuwa mulayeel masexsaday agablada abaarta u dhow adaa kuwa mulayeel masexsaday marka maxaa looga jeedaa dee waa baasmaare adaa garable gubatada dhaaf adaa garable gubatada dhaaf waa ka gudub ka soco weeye daawadayaal kuwaasna waa qaar ka mid a heesaha geela loogu heeso dabcan daawadayaal meesha maadaama xeradii ay tahay tuwaalkan uu garabka ku hayo ayaa marka hore candhada neefka la marinayaa taasina waxay meesha ka saaraysaa digadii iyo meeshii xalay uu fadhiistay waxyaabihii kasoo raaci karayay si aanay ugu dhicin gorofka amaba dhiilka lagu maalaya geela caano nadiifina ay uga soo baxaan dhammaan geeljiraha markaa geela maalaya waxay wada wataan tuwaalkaasi waana mid ka mid a arrimaha nadaafadda tilmaamaya si aanay isugu qasmin magaranaysaa digadii iyo caanihii annaga qudhayda waxaan sugaynaa marka iminka dhiilka ka soo baxaan inaan noqdo qofka ugu horreeya ee cabba daawadayaal hashan xamar baa la yidhaahdaa sideeda ka muuqatana midabkeeda waa cas yahay waa hashii iminka la maalayay caanaheedina qofkii ugu horreeya loo dhiibay waa aniga marka bisankaan u qabanaya caanahan waxa weeyaan waa daqiiqadii ugu horreeyey markay neefkan ka soo baxeen soomaalida iyo daraasado badan oo dunida la sameeyana waxa ay tilmaamayaan caanaha geelu inay dawo ka yihiin xanuuno badan oo aan dawo kale loo heli karin taasi oo muddo dheer kadib saynisyahanadu ay ogaadeen caanaha geela halkan geelu ku dhaqan yahay waxaa jira dad deegaana oo ka ag dhow oo uu nagala joogo kaariye yuusuf cabdulaahi bal waxaan weydiin doonaa kaariye maxaa fikir iyo faa'iido ahayd ka heshan meeshan faa'iidada geelaasuu noo soo kordhiyey waxaa ka mid a caanihiisoo qura waxa weeyaan mid xanuunsanayaa jira caanahaas umaanu uga qaadnaa unka xanuunsanaya waa dawo waxaa kaloo jirta gaariba maanaan markiiba saacad naga maqnaadaba mabaanaan lahaynba saacad buu gaarigu naga maqnaada ka xanuunsanaayo ku qaad caanaha ku qaad waxa weeyaan faa'iido weyn baa halkaa geeli iyo gaarigaba nooga soo kordhay oonu ku qabna faa'iido soo kordhay ilaa biyaa debisbaan baanu ka dhaasan jirnay iyo daguyaal iyo dhubato gelin baad soconaysaa waa kan imika kambalkii bii dhaanxidh waa tan kambalkii laga dhaaminayo markaa faa'iido weynoo labanlaaba halkaa nooga soo kordhay waanaanu ilaahay ku xamdi naqnay reer miyigu waxaa la yidhi iminka uun magaalooyinku bay tagaan oo xaggii baloodan way isku xoog badan yihin
dhaqashadii xoolahana waxaaba uga lex jeclada qoladii magaalada joogtay arrinkaas ma jiraa arrinkaasi wuu jiraa laakiin imika taalifteeda dad badan baa ka soo noqdo cabdilaahi carab ku daydayba oo anigu waan ka mid ahay oo imika anaaba 2 qaalmood iibsadayba oo faa'iidadiisii ku dayday dadkuna wax u kordhiya oo wax tusa oo wado u sameeyay buu doonaya kaari Yuusuf Cabdilaahi oo ka mid ah dadka deegaanka sidaa uu noo sheegayna dhaqaysta geela halkan lagu dhaqay waxa ay didiilo ku abuurtay dadkii deegaanka oo iyaguna imika u holaday inay dad geelay noqdaan geel ay dhaqdaan daawadayaal markan waxaan doonaynaa waa 8 subaxnimo waxaan doonaynaa inaan geela dareerino maadaama aanu mas'uuliyadda la wareegnay oo aanu maanta geela anaga raacayna waxaan isku daynaa aniga iyo Cabdilaahi Carab iyo Cabdinaasir inaanu sii daynay 8 subaxnimo laakiin shukriyo halkan joogo qoladii aan mas'uuliyadda kala wareegnay waxa uu yiri waa xilligan lama sii daayo geela sababtuna waxa weeye dhulkan aad arkaysaan baad kale waxa jira waxa la yiraahdo dharab hadaba waxaan rabaa inaan dharabka ay idin fahantaan sababta geela loo sii day waayna sababta waa shukriyo geela waxa tiriyaan xilligan la sii daynin dharab baa jira dharabku waxa weeye markay ramxadu meesha hesho biyo ay xagga hoose ka soo noqdaan ayay wixii ka soo baxay baadaha ayay biyo ku noqonaya marka waa qoyaan baad kan saaran miya qoyaan baad ka saaran sidaas loo soo daynayn dharabkaas wuxuu ku keenaa calool qusqus buu ku keenaa iyo waxa la yiraahdo caalka ayuu ku keenaa sidaas looga baraysinaya marka waa la baraysinaya waa 8 iyo buura marka ilaa goorma laga yaabo inuu qalalo meesho ilaa 8 iyo barka ilaa 9 ayaa inuu qalalo geedku lama qabo waa dhulka hoose daba si aanu u sugnay inta baadku qalalayo ilaa waa hawl dheer halkaas caawna loo dhigay caanahaas aanu cabaynaa kadibna waxaanu qabanaynaa hawsha kale geelana sii deyn doona insha Allah halkan aanu fadhiyeena markay ahaatay in la sii daayo ayaan hawsheeda qabsanaa insha Allah marka xagan aanu fadhiisanaynaa adaragtaan waa deelkii kan waa kii geela lagaga soo lisay laakiin kan waxa weeyaan waa halka koobku ku jira marka waxa soo diinaysan waxan madow ee gunta laga mariyay maxay tahay waa culaygii kol horena in soo tibaaxnay Cabdinaasir uu sheegay waa geedka la meegaaga oo dhulka Soomaalida aad uga baxa marka wuxuu u sameynayaa xaraga iyo dhadhan dheeraada maanta aanu kanaan ku cabaya kama caanihi oo darayga halkaasaan ku suganay inta geeru dareeri insha Allah waa tahay daawadayaal hadda waxaanu bilaabaynaa in geeli la sii daayo marka waxa loogu sii hordeynayaa geela riman inta halka ku xareysan oo dhan iyo baarqabku waa geeli halihii dhalayay ama rimanaa marka iyaga loogu sii hordeynaa waa 3 qaybood waa qaybtan iyo qaybtaasho qaybta la maalay marka waxa ugu horeeya waxa weyn awrka baarqabka ayaa xariga laga furaya maadaama uu seetaysan yahay bal markaas sida looga furayo iyo sida loo sii deynayo aan hore ugu socono waabinaynin maxamuudow xariga oo dheer buma iska durdurinayo geel makay kabtan go'ayde iyuu durdurinaya wuu isku roorinaya marka xariga ku geeyay isku rooray wuu yeelaa xariga geelu sidkiisu waa maadaama halaan riman yihiin geelu sidkiisu waa misa geelu wuxuu qaadaa 390 hameen oo u dhiganta 13 bilood hasha 12 bilood ku dhasha Soomaalidu waxay u taqaanaa abaahi dhalays hal markii ay abaahootay xilligiisii dhashay laakiin 95% geelu wuxuu qaadaa 13 bilood waatuu ninkii u heesay uu ku lahaa 390 hameen oo sidkaa yahay sabal sugi waa ansa kugu simay 300 iyo hadana waxba hayni kuma sugi karo kowde laakiin ninka anigu xilligaasan kugu simay buu leeyahay 390 hameen oo u dhigmaysa 13 bilood ilaa hadda waxa lala halgamaya sidii baarqabkii geel hogaaminayay xariga looga dabcin lahaa marka bal inay ku dheen hawsha san qayb ka noqonaynaa nimankaas isla hawshisan yihiin kolka innaka wuxuu u arkayaa cadow u soo galay oo inoo wada bareersan marka sidan aynu arkayno daawadayaal wuxuu leeyahay doobida waxa la yiraahdo awood baarqabka muujinaysa marka waxoogaa u yara dagaalansi wan sugana inta la xalinayo kadibna geela ayaa la sii deyn doonaa markuu awrka iska ilaali jugrow
dadka geela dhaqa ama geela ku hawlan shaqadoodu si kastoo guriyo ay u jiraan ama meelo loo hoydo ay u jiraan haddana waxaa ugu xiisa badan geela xeradiisa agtiisa in mar walba la seexdo iminka halkan aan ku jira waxa weeyaan meel habeenkii waxa seexda nimanka geela la jooga wuxuu ka samaysan yahay dhirtan yaryar ee hiisha loo yaqaano dabkiina waa halkan iminka iga dambaysaana waa xeradii geela marka waxa weeyaan geeli habeenkii halkan mu fadhiyaa marka hurdada halkan bay habeenkii ugu baxdaa maxamed qorna walba dadka ardaaga seexdaan rag habeenkii meeshaan mada sameeyay meeshaan sameeyay waxaan u sameeyay geela difaaciisa u sameeyay waraabayaasha soo marayaan u sameeyay laakiin xayawaanka kale marka halkan difaac u seexato bahalka geela ku socda adiga miyaan wax ku yeelaynin marka aniga dadkay waxa ma cuno geela iyo wax arkun buu cunaya xoolayaasha xooluhun buu cunaya dabeetan meesha waxaan u samaysanay inaan geela mid kaayb dhan ka seexdo yaan u samaysanay abo noocna kala harrafiyal halkan mid kala ku taalo koona waa nin laba ardaysa geela nin badhan nin meel buu seexdaa saxanaha de geela ilaalintiisa ayaa u fiican tahay ayaa ka fiican tahay oo dabcan dad guriga gashada geeli wax ku dhacay ma ogaanaysa geeli wax ku dhacay inuu daatay iyo inuu dareeray waxba ogaan maysid dabkan baad sidanaysaa halkaas leeyahay kulaalasa hasha dhalaysa iyo hasha kale dhacaysa waad ogaanaysaa halkaas ku jiraysa hadii waxa la doonayay fijigeeda inaad shaqaysan la doonaya badiya xoolu ay ku badayino midix biyo ay sadaano bartamaha wabiyaar qaniya warwaqada dhulkooda u bareeri waayo baariyo ku qabashada oo babaajida daawadayaal mashruucan xoolo dhaqistu sidoo kale waxa garab socda oo Cabdullaahi Carab halkan uu ka sameeyay mashruuc kale oo beeraha ah marka la isku wada daro wuxuu noqonayaa Cabdullaahi waana xoolo dhaqato waana beeraley waa xoolo dhaqato beeraley marka sidaas awgeed baana u sahashay intaas oo geela oo 300 ku dhawaada inuu meeshan ku dhaqo dhinacana mashruuci beeraha ka wado Cabdullaahi mashruucan beerta ma waxaad uga jeedaa inaad geela ku dhaqdo mise iyadana waxa qastiga ku ah inaad wax soo saar beeraha soo saarto geel weynu naqaanaayo wuxuu weyn wuxuu cunaa uu badan yahay wuxuu cabaa uu badan yahay kolkaa marka 300 oo halaad haynaysa waa inaad calaf ku hayn aad haysa hadii kale waa isku darxumoonaysa idinku marka xagga qardha geela ku dhaqaysaan sidee u maareysaan xagga kaydka iyo geel wuxuu cun lahaa bismillaahir rahmaanir rahiim anagu waxaanu deegaanka aan deganahay oo qardha area waa deegaan dhulkan iminka aynu ku noolnahay oo Hargeysa iyo agagaarkeeda ka nabaad badan waa dhul aad iyo aad dooxooyin balbalaaran oo aad iyo aad u daaq badan oo dhulsan ah marka Cabdullaahi anigu ma aaminsanayn ba Hargeysa iyo aageedan in geel intaan la eg lagu dhaqi karo ma aaminsanayn waxa suurta galiyay Cabdullaahi dhaqaale fara badan geliyay karti aad u fara badan la yimid noloshan iminka Cabdullaahi sameeyay waa nolol wax badan galeen oo maskax iyo dhaqaale iyo wadaniyad ah marka anaga iyo Cabdullaahi waxaad moodaa deegaanka aan ku kala noolnahay inuu wax badan ku kala duwan yahay wuxuu waa u gaaray hadda sida ii muuqatay inuu kaba kaaftoomayba balkiyo dhulkii markuu xooloobay uu noqday dhul maalinka maanta yeelaalka yaqaan oo wax ka soo baxeen oo biyihii u ceshaday ayaa nabaad aanan anigu indhaweydba arag ayaa ka soo baxay dhirtii dhir kaba nabaad guurtayba dalkaba Soomaalidu xoolo raacato weeye xoolo dhaqato maahan berigii hore marka roobabku da'aan oo roobku hawd soo saaro 500 kilomitir ama 400 kilomitir ayaa geela loo hayaamin jiray waxa loogu heesi jiray hilaaci xalay kii hameyn hore kii hoogoo da'ay bal mid ku hagaag waxa loo oran jiray yaa madoobay yaa madowyada maalin hore da'ay kaaga mudan oo kaaga malaroon halkaas laga hayaamin jiray deer la waayana doole loo raac gul la waayana guulo laga bari inkastoo gugaya deertaba in guulo laga bariyo ay tahay oo ilaah laga bariyo maanta Cabdullaahi arinta uu daha Cabdullaahi Carab u furay waxa laga kaaftoomay in geeli la hayaamiyo la daba galo xooluhu way inoo badanayaan waynu barwaaqoobaynaa dad badan oo Soomaaliyeed oo nolosha maanta qawaday oo badda isdhigaya na waxaan aaminsanahay dalkooda ayay waxay ka heli lahaayeen nolol deegaankan markan balka jaraayo Cabdi Shakuuro konton qof baa gooynaya oo deegaanka mi konton kun bay ka helayaan waxa laga yaabaa bildhan inay jiraan waa shaqo abuur waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay isweydiiyaan
dee geel hal qof raaco hal qofna leeyahay unbaa la yaqaani badana dabcan laakiin 35 qof oo geel ka shaqeynaya oo geel usoo shaqo tagay ama xafiis fadhiya ama geel la jooga ama baabuur u wada dadku waa wax badan ka qarsoona shaqo abuurkuna meel kasta ku jira marka waa tusaale wanaagsan oo muujinaya bulshada haddii ay u dhaqaaqdo dhinaca wax soo saarka iyo horumarka iyo xoolo dhaqashada inay ka soo saari karaan dhaqaalaha badana qof kasta ku taamayo ee ay raadinayaan qawlo bareeriyo muruq ra'iisu biirsha mabda lagu baliyaa taayinu ka adag yahay boqore kuugaado uwarkooda barayaan barwaaqana ku gaareen barwaaqana ku gaareen waxaan joognaa qaybta dhaamka meeshani dabcan waxay ahaan jirtay meel oomana ah oo aan biyo lahayn iminkana waxaad aragtaan inay biyihii fadhiyaan oo biyo qabatin ilaa 3 ugu yaraan la sameeyey arrimahaasoo dhan waxaa suurtageliyey cabdilaahi carab oo mashruucan barqamaal halkan ka sameeyey inaan anigu ka faa'iideysto waan iskugu talagalay dadka deegaankana inay xoolahoodu ka cabaan imanka halkan bay awrta imanaysaa way ka dhaansanayaan xoolahoodu inay ka cabaan waan ugu talagalnay annagana wax wanaagsan oo ilaahay u dhiibino inay noqoto haddii dadku ay ka fakerayaan in arrimaha noocan oo kale ah dawlado waaweyn iyo hay-ado iyo ay ka shaqayn karaan oo aan shacabku waxba qaban karin taasi waxa meesha ka saaraysa tacabka halkan uu ka qabtay cabdilaahi carab oo kamid ah ganacsatada Somaliland waa mid u sahlan markaa dadka kalena inay hadday tiro badan isugu tagaan ama ay deegaan isu kaashadaan arrimo noocan oo kale ah inay samayn karaan marka waxaan ku socon doonaa qaybo kale oo haray ee ka baxsan geela iyo wixii la xiriira daawadii hadda waxaan joognaa qaybtii labaad ama dhaamkii labaad ee beertana ay leedahay laakiin dhaamkan uu ka duwan yahay kii hore farsamo lagu dhigay bacdan oo biyaha celinaysa ayuu dhaamkan dheeri kii hore kaasina biyihii baa ciidu cabaysa kana waxaynu ugu talagalnay dee wax milic iyo dabeel cunto mooyaan inuu biyaa waqti dheer hayo kolka tusaale ahaan imaka inaku riiga kumaynaan guulaysan waynu qodaynaa biyo qaraar baynu ka qaabeen dadkiiba ka cabi kareen waynu qodaynaa 200 kuma wuu dumay baa la odhanayaa waynu qodaynaa waxa la odhanayaa biyaa laga waayay kani waa kaas balastigaas dhigaysaa raxmadda ilaahay shumaysa iyo aqeelis kol kharashaana uu kayri mar qura muu maran intaan imaka balastiga dhigay isagoo roobku wuxuu isagoo ku jiraan uu gudaa markii hore qofna ma sawiran kareenin in meeshan waxa laga soo saari karo balse hadda waa xaqiiqo wanaga dul taagan waxaana ka soo baxay wax soo saarkaas cabdilaahi maya qudaarta wax lagu karsado dhamay way ku jirtaa basashi baa ku jirtaa tamaandhadii baa ku jirtaa liin macaantii baa ku jirtaa liin dhanaantii baa ku jirtaa saytuunkii baa ku jira kolka basashan imika waa markii labaadaynu ka goynayno basashan dadkeena wax weyn baa ka siiya oo xukuumadda qura lama oran karo hase haatee weyn dhinaceeda ka dadaashaa waxaanoo TV-ya waxaanoo website-da waxaanaynu isku wada caayayno waxaynu qof ku maagayo waa inaynu xaggan u adeegsanayno dhulkeena wax ka soo saaro muuse biixina waa loo han weynaayo askartu waxa taqaanaa baa la yiri wax soo saarkii iyo kiciye iyo inay iska wax u qabso isagana waynu sugayn hadda waxaan la taaganahay mid kamid ah dadka deegaanka walaalada magacaaga ku bilaabaya meeshan in badan baad joogtay intii aan laga sameeynin beerahan iyo cawskan iyo balkan lagu beerin war waxaad ka warantaa maadaama deegaankii tahay sawirkii hore meeshan lahayd iyo sawirka imika marka hore maxay ahayd bohol xargan bay aan biyo lahayn oo daaq lahayn oo sarac lahayn bohol xargan bay hadon la aan deedaadkuna jeexo imikana waxaad arkaysaa baa jiifa waliba shaqaabuur baa laga helay shaqaabuur ayaa waxyaabahan Cabdilaahi Carab sameeyay ayaa laga helay xaggeena kor biyo ku dhaweey xaggeena ugu dhaweey 10 kilomitir dhubatiya dibis 10 kilomitir baa noogu dhawaa maxay 2 saacadood iyo badh laba lugood ayuu socon jiray imika biyuhu baliyadii iyo hadii Allah idmayo barkadii yar yar la sameeyay baa ku jiraan aad iyo aad baa loo wanaagsan yahay ku deesho aad u wanaagsan buu keena aniga imika waxay ugu abuuran inaan anu geel ban lahayo waan baabiyaba imika geeli dubaan doonayay inaan u sameeyo hadina duba asaaso laba awr baan leeyahay waxaan doonayaa inaan geel galiyaba in wax la qaban karo shaqadu ay meelaha nagteenu taaltaalo oo nisiiba fogeyn oo samiriye dadaal la keeno ayaan imika aad iyo aad daransan geela ayaa waxa uu ka mid yahay xoolaha ay Soomaalidu ugu jecel yihiin waxaana xilliga barwaaqada ee sabankan oo kala ay si weyn
ishu u qabanaysaa amaba aad si xiisale u daawan kartaa marka geelu xilligan galabnimada uu dhulka bannaanka ah amaba gaaroodiga isugu soo baxo ee geela dhalay iyo kuwa rimaniba ay saa isu dhex qaadayaan waana mid ka mid ah ilqabatinka ugu wanaagsan ee geelu uu leeyahay sida ay noo sheegeen dadka iyagu ku hawlan raacista iyo dhaqista geela barotamaadka joogo tana maanta oo kale markuu joogo uu dee rimayda iyo irmaanka iyo neef walba dee ay ishu qabanaysee u feedlamoodliyashade aad iyo aad ilan wax abaar jooga qurux ma lahe maantoo kale iyuunbuu ugu qurux badan yahay waan gartay ilaahay mahdaa ka gaadhee maantoo kale xoolo markii saasoo kale dee sabadoodu doogantay keymaha tagaadale uu joogo col iyo cabsi toona aanu joogin iyuunbuu ugu qurux badan yahay maalintee buu ugu warwar badan yahay maalinta colaad sokeeye ay ku dhacdo amba abaaran wakti xun dee uu ilaahay la kulmiyo iyuunbuu ka tuxuyi ee looga baqanayo ama in la dhaco ama in la qaado markaasuunbuu ugu foolxuyi waan gartay midabadooda kale magacma loogu daraa mid baa cas oo huruud baa la yidhaahdo xamar bay la baxdaado midibo waxay u egta bay la baxdaa ta madowna maxaa loo bixiyaa ta madow buluug iyaba loo bixiya buluug iyo hire iyo waan gartay daawadayaal intaasi ayaanu kusoo koobaynaa waxaanaanu ka qayb gelaynaa caraabintii geela sida ka muuqata halkan geelii labaa loo kala saaray geela riman waa la iskaga tegey laakiin wax gaar loo saaray intii irmaanayd ama dhalay dabadeetna waxaa la samaynayaa inta kalena waxa laga yaabaa goor dambe oo caaw ah in iyadana mar kale lasoo doono lasoo xareeyo marka geel jiruhu geela wuu kala jiraa haddana wuu wada jiraa waa sidan oo kale waxa weeyaan hadba qaybuu maamulayaa iminka ilaa dhowr iyo 40 ama dhowr iyo 50 neef buu kaxeeyey waxa laga yaabaa hadhow haddana in kale oo dhalaysa la kaxeeyo waana nidaamkaas sida ay u maamulaan geel jiruhu inta badan geela ay dhaqayaan foorida aad maqlaysaana waxa weeye guubaabo ku saabsan geela in la kaxaynayo oo loo kaxaynayo dhinacii xeradiisii markaasi uu bilaabmo hawshii maalista fiidnimada marka geelu waxa weeyaan wuu yaqaanaa marka la caraabinayo iyo sifaha ku aadan bal naasir oo geel dhaqato ah ayaa waxaan weydiinayaa maxaa u gaar ahee marka mataqaanaa galabtii uu geelu daaqa dhammaysto ee uu sidanoo kale u dharagsan yahay geel jiru hadda ay kale muxuu sameeyaa waa galab maantoo dhan buu geelu daaqayay iminka wuxuu u socdaa xaggii xeradii waxay yidhahdaan soo caraabadu caafimaad iyo caana kuuma leh casar dabadii soo caraabadu caafimaad iyo caana kuuma leh naasir wuu mahadsan yahay daawadayaal geelan wax ka caraabinaynaa kadibna xeradaanu tegaynaa halkaasa lagu samaynaya maalistii u dambeysay dee caanahana sidaan idiin sheegay maadaama saakana ugu horreynay caawana annaga uga horreynay haddaan la yidhaahdo kadibna waxaa inoo ballana inaynu magaaladii ku noqonno oo aynu ogaano bal caanahaasi iyo sida loo maamulay markay xerada ka baxeen kadib haddaan isiiyo warbixino kooban oo ku saabsan shirkaddan caanaha barqamaal waxaanan keenaa caano saafiya oo tayo leh oo aad iyo aad u wanaagsan waxay yimaadaan laba meelood oo caanahan ugu talagalnay inaan dadka ka iibino macaamiisha reer hargeysa meel waxa weeye xarunta weyn oo waxay ka soo jeedaa buubaal ama haddaynu nidhaahno dowladda hoose xagga waqooyi ayay ku taalaa waa branch 1 iyo qaybtan labaad aan iminka taaganahay oo branch 2ya labadaba waxaan keenaa caano tayo fiican oo aad iyo aad dadku uga heleen caanaha waxaan ku soo qadnaa weel wanaagsan oo almuuniyama iyo jaandiya oo caanaha waxba yeelayn annagu habeenkii iyo subaxdii haddii aananu midba koo cabbin maba seexanno subaxdiina dhumanno ma furmaan caanaha geelu waxay dawo ka yihiin oo ku jirta dawada laado isliinta ku jirta marka dadka macaanka qabaana aad iyo aad ha u cabbaan caanaha geela ee dhayda waa caano aad u wanaagsan oo saafiya weeye waniga jooga ku jirta maalin walba waan qaataa 3 koob ku qaataa meesha marka barabwal waxaan ku farxsanay runtii ugu ducaynaynaa nimanka geela ka shaqeeya iyo say u beereen iyo say u hagaajiyeen iyo caanaha ka yimaad tayadooda iyo caafimaadkooda barqamaal caanahooda annagu muddaanu macmiilanaynay
haddaan macmilaynayna waxaanu ka eegnaa wax weeye geelu meeshu daaqo geel xaraysan maaha oo hadhuudh iyo galley loo dhiga maaha waa geel foofo weeyaan dhir badan oo kala nooca soo cuno weeyaan waa geel haddaad caanaha dhayda ku dhanta iyo haddaad karuurka ku dhanta labadaba wax lagu kala gartaa caanaha marka la dhigo karuurkooda markaa eega inay fresh yihiin iyo in kale geela karuurkaa lagu gartaa marka caanahaas waxaan leenahay dawadaana way yihiin dee waxyaaba waxtarkooda kalena la isweydiin maayo caanageelka haddana waxaan information ama macluumaad yaro kooban niga siinayaa shirkad labaad oo ka mid ah shirkadda barqamaal oo magaceeda la yidhaahdo Tawakal Air Moving Machinery Center waa shirkad ama waa company weyn oo maanta dalka ka jira oo leh cagafyo waaweyn iyo gaadiid waaweyn oo aan ugu talagalnay inay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka dhismaha dhaamamka dhismaha barkadaha hadday tahay bulldozer-kii cagafyadii noocii waaweynaasan sadda lahaa shawalskii baa jira waxaa jira boqolayntii baa jira kuwa kale waxaa jira beeraha jira intaba waa adeeg aan bulshada reer Soomaaliland u hayno meel kasta ay joogaan بلنتينو